magaalada degmada Xudun ee gobolka Sool waxaa si joogta looga daafuray barnaamij loogu magacdaray Afuri Walaalkaaga Soomaan. barnaamijkan ayaa waxaa soo abaabulay qayb ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi iyagoo kaashanaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Xudun. dhalinyaradan ayaa bulshada ugu baaqay inay caawiyaan dadka ahayntooda yar tahay waqtigan adag. أولاً waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meelay joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaanu niman dhalinyaro aan galabta dad muxsiniin oo dhalinyaro ay maanta nagu wareejiyeen dad kooban oo 10 qoys oo afur maaragtay ay ula bixeen hor Ilaahay oo sadaqa ahaan ula bixeen nimanka dhalinyarada ah oo kamid yahay culimo iyo isugu jira ganacsato khayr Allah siiyo afurkii waxaanu guddoonsiinay dadkii loogu talagalay sidii maaragtay ay noogu suura gashay ayaanu ugu filaysinay magaalada baahi badan baa ka jirto oo deegaanku waqti abaaro kulul baa lagu jiro miyi iyo magaalaba waa lagu baahan yahay wax tuburcaad oo maamulada naga soo gaadhaana ma jiraan xalay jaaliyada Soomaaliyeed iyo ganacsatada reer Xudun meel ay joogaanba waxaan leeyahay ka qayb qaato danyartiina maaragtay afuriya oo iidsiya say sadaqaydu ugu noqoto run ahaantiina maanta magaalada aad baa loogu jilicsan yahay reer Xudun oo aan sugaano إنها سانكسو كوبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بمهله إلهي نبض قبل نقصو قارسي بيشن بركة سنة رمضان. قلبتها وحنو يرى بحين إني أفر كاسو إسكاسو أوروريان اللي يرد دقبضو وهردعها يوجه كوباده برنامج لده أفوري والعالكة مركا magaalada aad baa loogu jilicsanaa abaaro badan baa jiray baahi badan baa jiray waxaan aad ugu mahad celinayaa Ilaahay weynaaye waaxidka ay nasoo siiyay iyo dhalinyaradii aad ka qayb qaadatay iyo xildhibaanadii ugu horeeyay Maxamed Yaasiin culimada Sheekh Awil ku jiro Awil Qadar oo arintan aad ugu soo shaqeeyay galabta ilaa 10 qoys baanu gaarsiinay insha Allah dhulka de waxa la hayo iyo baahidu waa kala badan tahay أنا وأنت كران كيجا ودي إذا هيد بانو بلوني إن شاء الله وحكي كلا دم حسينين أنا وحنا نجعل الله إني تذكر أوجادان تلعسان مجادة شوجا تذكر مرة ضحك شو هذا واحد بهيد أوجاني سيد أنت واحد بدنا مرة قوم وكان مجادة شوجا قوم وبنيا مرة نجعل الله تذكر أوجاني سيسوت الناس من نقطة السلام الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي تبارك وتعالى يا مهد سكله قلبت قلب السنين بشر رمضان أي صدح تهي وحالكم ولا لا محسنين عدد إسكا مساكين حوجي أفر أي جارسيين وحنا لا هي مركع ذلك مساكين تول القودية وحيالها وين وحويا إلهي تبارك وتعالى لوجو دوادو إلهي تبارك وتعالى مركو دتك الهجانها وسفوين كتلمام ويدعو من الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا دتك مساكين تأي قوديان يجو تشعل هاتن وحن كجرنا بالرمضان وفذا إشيدو أي أرض بدنتهاي وحيالها النبي عليه الصلاة والسلام بشن وها النبي عليه الصلاة والسلام أجود بله ذنبه بله كله كوا يعني حويا بيشوا والصدقة هذا بدنا وياهيد سادرادي وحلا الدنيا يقفكوا إنه وبحيو صدقة وبحيو ودتك مساكين تعلقوديو ودتك الأفوريو هل قف الأفوريسيد أجر كيس أي الله اللي هاي راح نقول باقي يا دمان دتك مسلمين تاع إني قف والبعدي باهن أكتس شوكتا وقوديو ولا يسوق المدو وحويا ما أنت عبارة بدن يوحي وقت أدق يسحر بر يوقت أدق بين كترنا marka inagu isku naxno oo aynu isagu naxariisano ilaahay inoo naxariisanaya nabiga kaleey salaatu wasalaam xulay irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa oo naxariista cid dhulka joogta Allah samada jira idin naxariisanaya arrahimu yarhamuhumullah kuwa naxariista ilaahay baa u naxariista saadaraad ilaahay roob baynu ka rabnaa naxariis baynu ka rabnaa
caafimaad baynu ka rabnaa sadaqada dadka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay daawu mardaakum bisadaqa dadkiina xanuunsanaya sadaqada ku daaweeya dad badan oo xanuunsanaya jira waxa la rabaa inaynu sadaqada dadkiina xanuunsanaya ku daaweyno inaynu waxa weeyaan haddaynu ilaahay naxariis ka doonano raxmaadkiisa iyo caafimaadkiisa iyo nabadgelyo aan doonano aynu inagu dhexdeena isu naxariisano markaynu inagu isu naxariisano baa ilaahayna inoo naxariisanayaa maxamed cawil kawte degmada xudun ee gobolka Sool.